shacbiga reer Somaliland iyo saxaafadda maanta halkan isugu timid aad baan u salaamaya. waxaan u maleynayaa waa ciidankii ugu badnaa xagga saxaafadda ee meel isugu yimaadeen dhawaataan arko waxa idin soo kiciyeen waa wax dareen idin soo kaxayay waxa ogtihiin in afar habeen ka hor markab xoolo sida uu ka dhoofay dekedda Berbera isagoo u sii jeeda dekedda Jidda dalka Saudi Arabia. markabkaas wuxuu ku tegey dalab uu baankii islaamiga ahaa ee xoolaha qaadan jiray mawsuulka xajka uu dalbaday uu yidhi xoolaha la soo raro oo la soo daayo isaga iyo nimankii carbeed ee xoolaha iibsan jirayba oo ay bixiyeen damaanad ah inuu markabkaas ay diyaar u yihiin dejintiisa la dejinayo. markabku saasuu ku dhoofay dowladda Muqdisho markay ka warheshay in markabkaas Berbera ka dhoofay duulaan ballaadhan baa la qaaday ilaa iyo wasiirkii wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu u dhoofay Saudi Arabia dalka Jidda ayuu u dhoofay. wuxuu culays weyn iyo dagaal weyn uu saaray in markabkaas aan la rogin. wuxuu kaloo gaar ahaan ula soo hadlay ragga maxaajiirta waddanka ku yaala isagoo ku hanjabaya inaan wax xoolo Somaliland ka dhoofayo warqadda maxaan ku raadiyay dowladda Muqdisho sidan ka degi doonin maxaan ku raadiyay dekedaha Saudi Arabia. markabkaas ilaa iyo hadda wuxuu taagan yahay Jidda weli xaaladiisuna waxay ku sugan tahay waa bayna daalikeyn. qoladii markabka raratay ee baankii iyo nimankii ganacsatada ahaa ee carbeed waxay aad iyo aad uga dagaalamayaan in xoolahooda la celiyo. wasiirka ka socda dowladda Muqdishona wuxuu dagaal ugu jiraa inaan xoolaha la dejin. xaaladdu markabka uu ku sugan yahay waa sida waxaan markaa xukuumad ahaan aan rabaa inaan shacbiga u sheego in go-aankii xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha reer Somaliland ee ahaa inaan warqad aan ahayn warqadda xukuumadda Somaliland ay siiso maraakiibta ka baxaysa dekedda inaan lagu dhoofin karin inaan lagu dhoofin doonin xoolo. waa ogtihiin dowladda federaalka inaan Berbera iman karin oo aanay ruqsad samayn karin. cid xamar tagta oo ruqsad ka soo qaadataan inaanay dekedda Berbera waxba ka rari karin. laakiin waxay ku tusaysaa colaadda ay xukuumadda Muqdisho ku sugan ay shacbiga iyo ummadda reer Somaliland ay u qabto ay u hayso. waxaana inala gudboon inaynu dareen ka lahaano halka ay colaaddu ay ka taagan tahay markaa damacsan inaynu wada hadallo oo waxa inoo dhexeeya inuu wada hadal ku dhammaysano. waxaa kaloo aan ku wargelinayaa shacbiga reer Somaliland iyo dadka xoolaha dhoofiyaba meel kasta oo xuduud ah oo ay xoolo maraan waxaa lagu dhaqayaa sharciga Somaliland. waxaa ka mid ah xadka Lowyacaddo ayaa ka mid ah xalaale wixii xoolo halkaa maraya waxay ijraa'aad ahaa ee laga qaadi jiray xoolaha dekedda Berbera ka dhoofaya ayaa laga dhoofaya hadday caafimaad tahay iyo hadday cashuur tahay iyo hadday khidmad kale tahay. waxaa kaloo aan u sheegaynaa xoolahaas markay xadka ka tallaabaan inaanay dib ugu soo noqon doonin Somaliland inaanay dib ugu soo noqon doonin. xoolahaas waxaa loo aqoonsanayaa xoolo dhoofay oo dal kale u dhoofay sidaa darteedna aan la ogolaan doonin inay xoolahaas Somaliland dib ugu soo noqdaan. intaas xoolahana de waa xoolaheeni waxaana ay la mid yihiin oo la sharci yihiin xoolaha dekedda Berbera maraya hadday cashuur tahay iyo hadday khidmad kale tahay waxay la sharci yihiin xoolaha waxay la mid yihiin wajaale xoolaha marayoo kale. dekadu midna waa dekad qalaalan sida wajaale midna waa dekad bad leh sida Berbera oo kale. marka waxa weeyaan xadka Lowyacaddo waxuu la mid yahay xadka Itoobiya ee wajaale ee wax lagu cashuuro ayuu la mid yahay. Itoobiya waxa ku dhaafay intuu wajaale maro Itoobiya ku dhaafa oo adiga dib kuugu soo noqda ma jiro.
sharciguna dee waa sharci international ah ma haddaan inagu aynu samaynayno marka waxa weeyaan xoolahaas jabuuti meeshay doonaysa ha geyso laakiin inagu weyna dhaafay inuu kuna soo noqon maayo sidaa bucshirada wajaale u martaa aana dib inuu ku soo noqonay horta waxaan muddona way socdeen xukuumadduna maalintii hore warqadaas ay soo baxday dagaal badan baa laga galay dagaalkaasuna waxaanu filaynay annagu inuu gebagaboobay laakiin waxaad moodaa inuu haddeer dib u soo cusboonaaday marka harena waanu u gallay intii la mari karayay iyo dhulkii wax la marin karayeyba waanu maray wixii waajibna markaan ugu baagnaana waanu samaynay haddeerna halkii kaga hadhi mayna sidii un baanu u daba joognaa laakiin waxaanu ummadda u caddaynaynaa go-aanku inuu kaa yahay markii horena kaasuu ahaa haddeerna waa kii laga tegi maayo warqad somaliland ay leedahay waxaan ahayn oo xoolo ku dhoofayaan ma jirto waxaa jira ganacsato badan oo dhinacii xoolaha oo werwer badan markii warkani soo baxay uu ka galay maxaad adigu ganacsatada leedahay farxi maxay ka warwarayaan in arrintoodii laga soo celiya xoolihii somaliland waxay si badheera weydeen inay xukuumadda la jaan qaadanaysa saddex xukuumaddooda iyo wadanimadooda haddaanay ka horeynba aanay iyagu ka dambayn xooluhuna waa laba weji wejiga imika aynu ku shaqeynaa xoolaha lagu diraya waa wejiga xoolaha baanka islaamku dalbaday waa odhar inooga yimi iyaga odhar iyaga inooga yimi oo aynu wax kaga iibinabayna xoolihii ugu horeyna khasaare gaar ah oo gaar inoo soo gaaraya oo aynaan wada qabin innagii baanka islaamiga ma jiro waxaad sheegteen dhacdo dhacday oo ah markii somaliland ka baxay oo meel baxay waxaad sheegteen in amara ay ka soo baxeen ninkii xoolo dhaqatada ahaa isaga farmaajo waxba kuma qusayaan somaliland uu ku dhex nool maxaa xal u ah ninkii neefkiisa ariga ah iibinayey ee sanadka dhan la sugayey xal maxaa teeda labaad ee mudane wasiir waxa ka soo jeedaa deegaanka ciidafe xushbadaha ka soo cusboonaaday xukuumaddu weli kamay hadan adoo afkii xukuumadda ku hadlaya adoo deegaanka ka soo jeeda ku hadlaya arrintaana oo shacabku u dheg taagaya waxaad ka odhanaysaa hadda munaasabaddani dee waxay leedahay mawduuc bay leedahay su-aashaada labaad mawduuca way ka baxday waxaase kaaga jawaabayaa mawduuca hore waxaa weeyaan ganacsatadu waxay ka mid yihiin xoolo dhaqatadu waxay ka mid yihiin shacbiga somalilan ee ay xukuumadda iyo ganacsatadu intuba ay u shaqaynayaan waxaa noloshooda iyo mustaqbalkooda uu ku xidhan yahay qaabka iyo nidaamka iyo siyaasadda lagu hago xoolaha ay iyagu dhaqdaan sidii ay u heli lahaayeen saylada kuma jirto inay maalin walba ay maxaan ku rahday saamayso shuruuc meel kale kaga timaada haddaan laga dagaalaminna waxaa weeyaan xoolo dhaqatadu maalin walba dhibaato cusub oo hor leh ayay la kulmaysaa ama maanta ama maba jirto weeyaan ama maanta waa inaynu waddo u hella xoolaheennii oo sacuudiga waddadaa uu furaa ama waa inaynu saylado kale doonanaa inaan sacuudiga u xidhnaanin waxaynu ku khasbayey waxaa weeyaan waa meesha ugu dhow aynu xoolo geyno laakiin waxay noqonaysaa iminka inaynu cid kastoo diyaar u ah inay waxna ka iibsato inaynu inagu geyno waxaana waajiba inaynu doonano saylado kale inaynu doonano ama ha isticlaadaan ciddii aynu markii hore ay wax u geyn jirnay ama ha isnabcaadaan laakiin inagu danteenna waxa weeyaan inaynu xoolaheenna u helno cid qaadata waana helina insha allah sidaa uu idiin sheegay wasiir xasan wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu shir haddaanu ka soo baxnay oo ay isugu dhammaayeen wasiirada iyo madaxweynaha iyo ganacsatadii xooluhu waxaanu go-aansanay intaa uu idiin sheegay waxaan intaa ku darayaa dowladdii xamar dagaalkii siyaasiga ahaa iyo kii dhaqaalaha ahaaba way isku dartay waxay ka badheereen inay u duulaan magaalada jidda oo ay dabeedna soo rogaan markabkii oo ay fuuleen dhakhaatiirtii sacuudigu oo dhiiggii laga qaaday oo saxadii markabka la eegay oo la fasaxay in dabeedna ay ku soo celiyaan oo ay idhaahdaan warqaddii federaalka xamar ma sidataa iyo maya iyayaan la soo dejin halkaasay gaadhsiiyeen
waxaana la isku hayaa waxa weeye jiritaankii somalilan oo labadayadaa oday imika halkaa fadhinaa labadii warqadood ee aanu saxeexnay oo kala ah warqaddii caafimaadka xoolaha iyo warqaddii certificate of origin la odhan jiray ee rugta ganacsigu bixinaysay labadaasoo xamar ah inay berbera kaga dhoofaan weli kamuu suulin caqligii odhanayey xamar baa laga daaraa wax walba weli iskamay bedelin mana ay ku qancin markaa sidaa uu wasiirku sheegay waxaanu si cad u sheegaynaa go-aankii aanu hore u gaadhnay ee ah inaan dekeda berbere ka bixin ama deked kale oo somalilan leedahay aanay ka bixin ogolaansho ama ruksad somalilan bixisa mooyaane haddaanu nahay ganacsatadii rugtii ganacsiga iyo haddaanu nahay ganacsatadii xoolaha waxaanu go-aankaa la qaadanay xukuumadda waana ka midaysannahay